waxaan soo qaadan doonaa sheeko aad u qosol badan oo ku saabsan Juxa oo ah alaaba nin shactiroole ah sheekooyinkiisana ay xigmad badan ku jirto. Sheekooyinkiisu waxa ay u qotamaan inuu ku matalo qof dadka kale ka ra'yi aragti duwan. Haddaba Juxa sheekooyinkiisu aad ayay u fara badan yihiin. Waxaan soo qaadan doonaa mid ka mid ah sheekooyinkiisaas oo aad u qosol badan. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa Juxa hooyadii waxa ay damacday inay ducaysato. Marka ay ducaysatana sida caadada ah waxaa la qalaa xoolo. Sidaa daraaddeed Juxa ayay u yeedhay oo ay ku tiri hooyo oo lacagtan qaad, maanta allabari ayaan leenahay, waxaad tagtaa saylada waxaad inoo soo iibisaa neef adhi ah. Juxa waa aqbalay, lacagtiina waa ka qaaday hooyadii. Waxaan u tegey sayladii, waxaan u soo iibiyey neef adhi ah, balse Juxa ma uu sii qaadan wax xadhig ah oo uu ku soo kaxeeyo neefka uu soo iibinayo. Sidaa daraaddeed dhib badan ayuu kala mutay soo kaxayntii. Kadibna tunka ayuu ku soo qaaday ridii. Kadib waxa uu keenay hooyadii ayaa aad ula yaabtay sida uu rida u soo kaxeeyey. Kadib waxay ku tiri hooyo, ma waxaad garan weyday inaad xadhig iibsato oo aad qorta kaga soo xidho sidaana aad ku keento xaafadda? Juxa waxa uu ku yidhi hooyo, mar dambe dhici mayso oo sida aad ii sheegtay ayaan yeeli doonaa. Maalmo kadib ayaa Juxa hooyadii waxa ay u baahatay digaagad si ay ugu samayso qadada maalintaas. Si la mid ah ayaa Juxa ugu dartay. Juxa waxa uu tegey halkii lagu iibinayay digaagadaha. Kadib waxa uu soo iibiyey xabad digaagada. Isagoo ah fikirkii ay hooyadii hore ugu sheegtay maskaxda ku haya ayaa waxa uu iibsaday xadhig si uu ugu soo kaxeeyo digaagadda. Xadhiggii ayaanu digaagadii qorta kaga soo xidhay. Kadibna waa uu ku soo jiiday. Digaagadiina halkii ayay ku dhimatay. Isagoo oo jiidaya ayaa waxa uu keenay hooyadii. Markaas ayuu ku yidhi hooyo, waa anigan keenay digaagadii, waxaana yeelay sidii aad i fartay oo xadhig ayaan ku soo xidhay. Juxa hooyadii aad ayay ula yaabtay dhaqanka inankeedu uu sameeyey oo aanay la yaabtay. Haddaba sheekadan dulucdeedu waxa ay tahay ama waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxa lagu sheegay maankaaga la kaasho, waayo wixii lagu sheegay waa inaad mar walba ku dabaqdaa marxaladda aad ku sugan tahay xaadirkaasi inay suurtagal tahay. Haddii kale waxa kugu dhici doonta sida ku dhacday Juxa. Inta aan sheekadan sheeko la mid ah ku kulmi doono, daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha iyo sharaftaba naga mudanow, waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno. Waa inoo iyo barnaamijka ku xiga haddii Allaha wadalo.